awoodidda waxaa loola jeedaa awoodda eedeysanaha dembiga uu leeyahay inuu ka qayb qaato kiiskiisa. Si gaar ah, eedeysan wuxuu awoodaa haddii uu awoodo inuu fahmo dacwadaha dembiga, inuu la tashado qarankiisa, iyo inuu ka qayb qaato difaacidiisa. Awoodidda loolama jeedo mas-uuliyadda eedeysanaha dembiga mafhuumilka si ficiladiisu ay khaldan yihiin waqtiga uu galayo dembiga. Caadi ahaan, eedeysanaha waxaa lagu helaa awood la'aan marka uu la daalaa-dhacayo cillad wax kala garasho la'aan ah ama xanuun maskax oo aan la daaweyn ama ku tiirsanaan daroogo. Xaaladaha intooda badan, awoodiddu waa wax isbedela marka laga reebo eedeysanayaasha la daalaa-dhacaya cillad wax kala garasho la'aan oo joogto ah. Eedeysanayaashu badankooda waxaa awoodidda loogu soo celin karaa barnaamijyada daaweynta iyo kormeerka. Haddii awoodidda eedeysanuhu su'aal la geliyo, maxkamaddu waxay baare ku amri doontaa inuu la kulmo eedeysanaha, dib u eego diiwaanada khuseeyo, oo uu bixiyo ra'yi haddii uu u malaynayo in eedeysanuhu awood u leeyahay inuu fahmo dacwadda dembiga, isaga oo la tashanaya qarankiisa kana qayb qaadanaya difaacidiisa. Haddii awoodidda eedeysanuhu la soo celin karo, maxkamadda ayaa dib u bilaabi doonta dacwadooda kiiskuna wuxuu u gudbi karaa maxkamad ama xallin. Haddii eedeysanaha aan dib loogu soo celin karin awooddiisa iyadoo dadaal iyo waqti lagu bixiyey, maxkamaddu waxay joojin kartaa eedeymaha dembiga. Maxkamaddu waxay sidoo kale gudbin kartaa eedeysanayaasha awoodidda waayey si loogu sameeyo baaritaan xarun ku hayn madani ah. Xarun ku hayntu madanigu waa tallaabo sharci oo gaar ah. Awoodidda iyo xarun ku hayntu isku mid ma ahan. Are not the same.